ورسلانتينا كما قاري صومالي دقيستا قولكي إله إيا شرعا لغو قبوبا وحكالو لقوران صداق روح ما يشان خرافاتك إيا بينتا واللغو قصارا قلاف كان قران كاكدي قورتا نوصرا اسكا قبا قرمونك يا حقدي ويسو قريساني warwaa markii ugu horeysay oo 7 sano kadib khilaaf madaxda sare dhaxmara ay kaligood ka heshiiyeen soo laguma dhihin warninkan qaraxyadii dhacay ayuu kaala hadlay iyo qasaari ay geysteen madaxda aqalka sare ayaana ka hadashay hadii tirada la qarin jirayna runta laga sheegay maanta 22 qofood ayaa dhimatay bay yiraahdeen 60 ka badanna waa dhaawac war hadal wax ma tare wixii dhig loo ka camadeen ariya wixii dhig loo ka cameeqa sanaan dhahayna hadii la yeelayo nimankan inta waa qasan dhig wal dhigas iyo inay dhaay wal aragayaan meel dhammaag rahmaanka ilaahayno dhahsiiba goladuna dhibaayaan haduu jiray cadow qablihi qasaarada geysa jiray waxa yimid nacab qashiin qof raba dilitaan qof kale qudhiisana raaciyo maatada qarxiyaa bedelay warnimada qaraxyada ugu dambeeyay saamayn xanuun badan bay reebeen qaraxii soobe waxa ku dhintay 3 qof oo waalidiintoodii qaraxii shaam oo ku dhinteen qaraxii naasablood waxa ku dhintay dictor shiid oo shaam oo ku dhintay wiilkiisii oo dictor kala qaraxii u dambeeyay hotel saxafina waxa ku dhintay ina Cabdirashiid Ilqayte oo qarax horo isla saxafi ka dhacay aabii ku dhintay qaraxii shalana waxa ku dhintay Faysal Samow oo walaalkii uu ku dhintay qaraxii naasablood walaalkiis kale iyo aabihiina ku dhinteen baladweyne qarax ka dhacay dad badan oo sidaas abaana jira in yar oo naqaanay baan idin sheegay ama maqlay waa dhibane qarax Soomaalida inta badan haddana ma diirayno oo qaar ka haray way iska qosleeyaan aryaadaha qaraxyadaan cudurrada ay reebeen oo cunka aan bal yaaban dadkii oo dhan wees hoolayaan ay isxogaayeen xagagaf sunmiyay ku soo dareen sun hal loo qasay war hada wixii ma qabyaalada xitaa qaraxyada abayaashoodii wiilashii isku xogxaga lagu dilaya war almiina hadiiba aana la dhaafay qaraxyada sawtii la yiri 4.5 hal laga dhigo deegaamada loo qaybiyo qarax la sheego toowanaysa to kale alla ma noogu daro aamin dhah aamin ani runtaan idin sheegay balaayo hadiin laga hirin sidaan lay u soconaysaa ogaada arro adi ma ka dambeeyeen allahay ka allah warnimayow waxaan idin hayaa hal qudhiyadii laga diiwaan galiyay sanadkan dhamaanaya ee iga dhageysta darbi ayaan ka boodnay siyaasiyiinta xanaaqsan madaxweyne albaabkiiga fur dastuurkii dalka waa la haday 30 milyan haysta oo aan aabii ka dhaxlin xan fareesh ayaan idin hayaa 1991 ayaa loo laabanaya magaalo guuraysa WhatsApp ayaan ku ansixinay 28 sano kadib markii uu horeysay dadka bidaata leh waa in naafada qaranka lagu daraa horaa loo soconayaa qaran dumis mooshin musuqmaasuq wasiiro loo eedeeyay xatooyo dadweyne waan qaraabanaynaa sanad gudihiis 4 wasiir oo hal wasaarad isku bedelay kala wareeg madaxtooyadu dadka kama dhaxayso iyo ugu dambeyn waa markii uu horeysay ee musharax madaxweyne oo mashaariic xabsi u kacbo war ilaa hadda wax qabadka dawladda noo sheegtay aryaadaha hal waxaan dhageystay gabar xildhibaanad oo ka soo qaxday Jubbaland waxay tiri xildhibaano kalena way iga soo horeeyeen anigana waa la soo raacday xilkaygana waa la qaatay waxayna tiri Jubbaland hal nina macallin dugsi ka ah inta kalena waa ardadi wax ka maqlaysay war gabadha aad sheegaysaa nidaamka iyo kala dambeynta midha ka soo horjeeday macallimiin badan haday u baahay qabta galmudug ka tagtay warnimaha gudoomiyaha gobolka Nugaal waxa uu duqa magaalada Garowe ku eedeeyay inuu dawladda Soomaaliya xiriir la leeyahay waxaana uu yiri waxaan uga shaki qabnaa inuu yahay nabad iyo nolol waana in xilka laga qaado war waxa la yaaba goormay nabad iyo nolol dambiyada la isku eedeeyo kamid noqotay wartan la iska eedeeyay tiilifadaay meetan boorka number 4 ida tunka gorongu walaa u naxariistay wariyaha Awil Daahir shalay Soomaalida qarax ku dhimatay kamid ka ahaa madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray inta ka nool taxsiib ay u direen Ali Maadi Maxamed Abdi Qaasim Salaad Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud Maxaa Cabdullaahi Farmaajo shantaasiba taxsiib ay u direen low war kalimiyu falayniyo war Muuse bixiba ma la sheegay arshibnaga ma saga madaxweyne Hirshabelle laba sheegay war Mustafa Xagjarba ma sheegin lug ila ma ilaahaysiin ku gooyay ma seen ara lafta garaan oo madaxweynimadiis fareesh abino taasiyay ma ka darneerse wala wadalan yaw war madaxweyne xaafba ma adnaan ku darin boowe Cabdi Wali gaasba meedinka tacsida dadka diray uu ku jiray nagu yiri war waad waalantiin madaxweyne Asiis Sheekh Axmed Xulme idinka ugu soo daray yaa
oo madaxweyne badanaa waxaa ma maran yihiinoo alqaaracadka maa laga mari war waa markii u horraysay ee Manchester United ay hal kulan 5 gool dhalisay muddo kadib nimanyo war gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka amniga Mr. Tuulac wuxuu yidhi alxamdulillah ilaahay qarixii uu naga badbaadiyey 7 qof baa iiga dhimatay tuulax wuxuu yidhi qaruxu inuu maha yimaado habaxsanaantaan yaa keentay xaal laga rabaa rumow sheegay war barnaamijka isxilqaana tiyaatarka wasaaradda dastuurka maanta ka shaqaynaysay marka waxaa caddaatay isxilqaanka dhismaha ee dawladda inaan isxilqaanka isqarxiska shabaabka hor istaagi karin war eleemasaarka sin sheegasan madawiinaga lafta garan ama eleemasaarohay walaalaha Soomaaliland Mustafa Agtar baa qorshaday maxay idinka baahantay isxilqaankiinba ma doonaysay war qarxi shalay ka dhacay daljirka daahson inta boor meesha surneed waa baaba'een kii madaxweynaha bas ayaa ka haray waxay cadaynaysaa taas madaxweynuhu inuusan qarax iyo mooshin midna kursigiisa uga kacin armaye waxay cadaynaysaa madaxweynuhu inuu gees yahay oo san shabaabka kudaynin war taas waxay cadaynaysaa madaxweynaha inas awliya yahay war madaxweynaha Mareykanku awliya iyo Mareykanna ma inaska jira iska gali war adeerow taas waxay cadaynaysaa inuu madaxweynuhu inuu yahay kaligii taliye war taas waxay cadaynaysaa madaxweynuhu inuu bulad buruuf ku dhex jiro war yaa bulad buruuf laguma badbaado ma laguma badbaado يا مدحوينها كلي تليح هذا الله